وريال نسكمان وري من كان عندها كلا قاضو كعي حلي بلدي للهوي مادين صومالية كينيا يا وركها يهرت سودا وولد أنا وركها يه مدحوينها الصومالية لا كل ما ينحل بعنادي يمي وروح هري ويدي مدحوينها الصومالية سيلا كل مكران إلا هو ركناتنا ما كحجان كيسينا معه سيلا كل مكران محيسة كوا هلا هذا لا كل مرة يرش يجسن ورياري أنا جو واحد نوم ملاينا يا إن إنما كوي مادين أو مدحوينها كلاه اللين الرماها حدود كالصومالية يكين يكتاجن وحساسية ده كل اللي بقى الصومالي لك الصومالي كسر شيء الدجاج كالصومالي كي هايين سنة بدون ما الصومالي ما إنه يقولها اللي هي رحت أسمع مدحوينها فأنا ملاينا يا أنا وأرنتيسو nimankaasi nabadoonnimo iyo nabadeen ayay u socdeen laakiin arinta way eedeen garoonka Kenya markay ka degeen sida shacabkii ayaa xabsiga lagu boobay war waxaan jirin bad isku sheegtay xildhibaano xasaanad leh oo cud taagan difaaca dalkooda oo wadankooda ka turjumaya daraadiis u soo shaqo tagay sidee baa loo xiri karaa haddaysan Uhuru Kenyatta iyo Kenya waalnay gabaray wara haysaayir xasaanad kasto shakhsiga waxa ka weyn sharciga u yaala wadan waa qodobka labaad iyagoo federal uusan ogeyn dal kale ta soo galeen sidaasina ku muteen xabsiga oo talow haday sidaa tahay annaga xildhibaanadeena iyo wasiiradeena maalin walba dal tagaya siyaasadda ku suuq geynayo ayagoo fasaxaysanin sharci qabta male miyaa maya sharci qabto dalka waa ka jiriyaahe waxay leeyihiin xasaanad ka sii xoog badan oo qabiil la yiraahdo oon la taaba karin Soomaaliyeey waxa nasiib daraa Afrikadii aan shalay ta xoreynay waan u sameynay sharciyada in ayaduna ku dhaqanto kii aan u sameynay inagii ayaga u sameynayna ay noo yeeriyaan maanta oo aan qaadan heer la yiraahdo qabyaalad iyo qofkii qayaano qaran geystayna la taaban karin war sidaan dad iyo dal ma dhaqdo Soomaaliyeey Kenya waxay samaysay waa sharci halka annaga aan gacantana ku burburinayno wali anigu waxaan ku darsanahayaa madaxweyne goboleedyaalka qaybo ka mid ah sidii loo dhaariyay caasimada Soomaaliya cagta soo badhigay Nairobi iyo Dubai caasimadooda u qaba kutub iyo kalaanka arintaas waa ceeb waa yeelo soo imaada caasimadina waa Muqdisho xagga aadaysan doomariyada naga daayeen ducayne war waa sax waa sidaad sheegaysay laakiin ayeeyday baan waxaan ka maqli jiray daagahu waa kuwa laabta u daloola iyo kuwa leerta u daloola ilaahay kuweena iyo kuwa xildhibaanadeena iyo kuwa madaxdeena ka dhigo kuwa laabta u daloole ma waxay xildhibaanadeenu garan waayeen inay ugu yaraan codeeyaan xildhibaanadeenu inay Kenya iyo ciidamadeeduba wadankeena ka baxaan oo ay siiyaan persona non grata war waxaan maqlay xildhibaanada la xirxiray inay Soomaalida NFD inay ahaayeen xildhibaanada la xirxiray ayaan maqlay go'aan nooceey ayay ka qaateen shacabka heer NFD hadii xildhibaanadoodii la xirxiray dadkaasi gacan gumaysi bay ku jiraan oo go'aan ma qaadan karaan waa in loo gurmadaa ariyay waarun inaga inay sugayaan oo gurmad iyo walaaltinimo looga baahan yahay laakiin Soomaaliyey waxaan leeyahay Soomaaliyey tooso isku tiirsanaado hadba kiina taagdaranay taageera warigiinay wargeelada maqal yaa dhiciyay hadayna isku tashan waan isku tashano alla wadarigu cod macaana hees u la qiirooday cod macaankiisa oo wadari qiirooday way guulayso baashan waxay ahayd saaru maleen waa hore dhageysan jiray aqal tiir laantiis kaligi matagmi tararara katashada cadaawod nanta isku tiirsanaday war isku hees maaha labada heesood adiga laftaasiba wada kala cararay Soomaaliyeey tooso iyo ka tashada cadaawahood تعظون بيسوق يماد على وكلا لبه الصوت لكن واسكو موقف ووداني وحده الله وشرنا عاد مال بيوسعدان حسا ودنيga aad ma wada haysan nikatuhu insan Soomaali waa tamariyar antara ku siye waroy timir lafba ku jir ad maana ma wajiyo xumba halka ka hayalay ba wajiyo xun qiirooday hey baarlamaanka Soomaaliya oo fadlan baliis qodhi iyo xiradiin persona non grata let Kenya out Somalia persona non grata
Let Kenya out Somalia. Let Kenya out Somalia. war inamada Soomaaliyeed oo Soomaali NFD ka imaaday oo maxaad wadankoodii hooyo iyaga xaq u lahaayeen oo original ka imaadeen dartiis loo xirxiray qoodin iyo xireen waa in baarlamaanka Soomaaliya lagu daro wax waa loo qaban karaa waxaan ku talinayaa wiilasha la xirxiray oo Soomaaliyada dhulka iyagu lahaayeen oo dhulkoodii hooyo maxaad u tagteen dartood loogu xirxiray in lagu badiyo baarlamaanka Soomaaliyada waliba kuwa halkan farfadhiya shaqada qaban weyn ay iyagu qabtaan saasan ku talinaya oo federaalka lagu daro miyaad ka wadaa xildhibaanada baarlamaanka labada aqal waa in lagu daraa ragga Soomaali NFD alla ilaha arintaas anigu waa war ma codayna arintaas maanta isku waa codaysa hal lagu daro baarlamaanka wiilashaas waxay isku maana tiri maskaxda waa lagu dhisaa madaxa waa lagu hagaa midigta waa lagu qabtaa mijaha waa lagu socdaa miskaha waa lagu kacaa margigu wuu caawiyaa hadday kala maqan yihiin maqsuud lama gaari karo midnimaduna waa sidaas wixiina marooriyo muraad gaariya dan lana ma yeelayno ku filan